السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح wanaagsan galab wanaagsan wax kasta ay ku tahay wanaagsan kusoo dhow channelka Surbiyaan channel. maanta waxaan idin qaybsanayaa qado yar oo fudud oo aad u macaan haddana fudud insha Allah. Chicken iyo yaanyo iyo basal iyo toon baan halkan ku haystaa biidmillah. waa isla arkaynaa waxaan karin doono dhameysta fiidiyoga saa uga bogatid qadadan fudud ee iisiga ah insha Allah. aad u fududahay marka waa kana digsi ayaan sida caadada saliid ku soo shubtay wax yar markaan sugayna kadibna waxaan ku darayaa yaanyadii iyo basashiiba isku mar ayaan mataqaanaa ku shubayaa iyo toon ku dhex jirta insha Allah. hal mar ayaan maxaa la dhahay intaan isku soo shiirayaa abbaaraan ka maqnaanaa insha Allah. hadda waan ku soo laabtay daboolkii ayaan digsiga ka furayaa kaasaya waa isku soo shiilmay yaanyadii iyo basashiiyo toontii. hadda waxaan kusoo darsaday waxaa waaye chicken ayaan ku darsaday. hadda ayaan bilaabayaa waxyaabihii aan ku darayay waa yaanyo shiishiid oo qaade ah biyuur yaanyo haddaad rabina waa iska dhaafi kartaa. marka waa kaasaa wax baradho ama isticmaali dooni haddii ilaahay yiraahdo. kadib waxaan kusoo darsanay waa barbarooniga shiidan. hadda waxaan bilaabayaa waxyaabihii aan ku dar lahaa inaan midmid inay ku sheego insha Allah. maraq digaag intii markaa adiga mataqaanaa cuntada aad karinaysid ayay ku xiran yahay dhadhanka insha Allah. dhanaankeeda iyo saa u jeceshahay oregano yaraan kusoo darsanayaa haddii ilaahay yiraahdo. marka maasha Allah tabaarakallah waxaan rabaa waa isku qaleynayaa soo umajeeda ayadoon baradho lahayn suugada already waxay noqotay suugo yar oo cajiiba maasha Allah tabaarakallah. hal qaado oo haddana waxaan kusoo darsaday toon iyo kamsar caleen isku shiidan maasha Allah carafkaale iska arag. waxaan kusoo darsanayaa hadda waa barbarooni kala noocyo oo 3 nooc baamiyo waaye waxaas ay arkaysiin kana waa qudaarta isku jirta insha Allah. intaana haddana gab ku soo siinaya maasha Allah tabaarakallah waa qado yar oo macaan oo isku dheelitiran oo haddana waxaan ku dhahay maasha Allah maxaan kusoo dari doonaa talo filfisha kama tago mar walba laakiin haddii adiga aadan jeclayn waa iska dhaafi kartaa. wax yar baan ku daraa wax badan kuma daro oo kuleel siinaysa filfisha. hay akhyaaray cabaar kadib maasha Allah sidaan quruxda badan ayuu soo shiilmay arag suugadeeda diyaar waaye. hadda waxaan rabaa inaan ku daro maxaa filaysay maxaa isla karinaysaa waa baastadaas ayaan kusoo darayaa. baastada noocaas u samaysan adi macaroni le waa malaana baastadaas ayaan kusoo darsaday. marka maasha Allah waa qaleynayaa suugadii diyaarka ii ahayd miskiilo baasto adi haddaa ka yartahay oo mataqaanaa family yar aad tihiin miskiilada waa iska reebi kartaa haddaa ka badan tihiin miskiilo ka badan waa karin kartaa maasha Allah tabaarakallah. marka waxaan kusoo shubay hal bac oo macaroni ayaan kusoo shubay oo miskiilo qudaarteeda iyo mataqaanaa way iskarinayaan iyo baastadan iyo waxaan dhan way isku qiyaastas arkaya cunug yar oo ila joogta ayaa waxay i weydiisay baastada sheefka ay u samaysan tahay kadibna waan tusiyay waxaan dhahay waa kaasaa maasha Allah tabaarakallah qurux kaala iska arag maasha Allah waa isku shiila waa isku shaaxidinaya waa baastadiisa ula socotiina suugadii bas ayaan ku shubay baastada ma soo karinin bacdeeda iyadoo ku jirta ayaan suugadii gab ku soo siiyay. kadib waxaan sameynayaa waan walaaqa waan isdhex gelinayaa in baastada way qalalan tahay suugada qoyaankeeda si ay u gasho. waan daboolaa dabkana waa u gaabinayaa way huureysaa cabaar kadib waan kusoo laabanaa maasha Allah tabaarakallah waa kaasaa way isku shiilantay sida bariiska markaa shaaxidinay sidoo kale ayaa la rabaa inaa baastadan u sameeysid. waa baasto isku karisa laakiin aad u macaan runtii maasha Allahna saan aan u walaaqayo already baastada huurkii ay soo huurtay wax yar waxaa moodaa inay soo jilciso laakiin weli waxay u baahan tahay karis ay u baahan tahay maasha Allah. waa kaasaa si qurux badan ay isku dhex gashay way huurtay way shaaxiday way shiilantay. hadda ayaan biyeynaya maxaan ku biyeynayaa balgas maxaas leedahay waxa aan ku biyeynayaa caano waaye maasha Allah tabaarakallah. ilaahadana noo siyaad intii aan haysanina si caanaan ku darayaa 2 koob ilaa 2 koob iyo bar ayaan ku darsanayaa insha Allah.
kadib caanaha markaa ku karinaysid makaroonida ama baastada waxaa la rabaa dabkaaga inuu yahay dab daciif saa-idana ma adiga dab oo low ah in aad ku karisid oo xoogaa yar mataqaanaan hay ahayn si ay baastada caanaha lagu karinayo iyaysa kaa gubanin tartiib dabkaaga ha u ahaado adiga hal yar haaf caanaha hadda kusoo daraa insha allah labadii koob waxaa u malaysa wax yarna igu yaryihiin inti caano alaale caanihii markaas aa adigu haysatid caanaha isticmaalaya waa caano dhay ah caano dhanaan ma ahan laakiin caano alaale caanihii aa haysatid waa ku karsan kartaa markaa suugadaada diyaarsatid waa kaasaa way isu kay la egyihiin hadda intaas ka badan ma u baahne intaas ayaan ku karinaya akhaarey aa ujeediin maasha allah way ku filan tahay kadib waxaan sameynayaa waan daboolaya udafkana saa inii sheega u gaabinaa waa ka tegaya maasha allah akhyaarey cabaar kadib waa kanaa lama arko waxaa waaye digsi daftaana waay maaho qaaciya qariyay laakiin ay hobinaa aragtiin waa kaasaa maasha allah waxay noqotay wax kareem ah caanaha markii lagu kariyo maasha allah aada iyo aada u macaantahay runtii aadna way u fududahay waa kaasaa hadda dabkii dhan total waa damiyey waxdaba ma u baahni just waa saasa ku huuriya cabaar kadib waa kaasaa waay dheecaankaa yar inay ii leedahay waa rabnaa maraba inaa aada u qalajiyo waa kaasaa chickenka iyo wixii oo dhan maasha allah tabaarakallah waa qada aada iyo aada u fudud aadna u macaan faamiliga dhan ay enjoy garaynayaan marka akhyaaray ka faa-iideysta baastada iisiga loo karinayo oo caanaha lagu karinayo oo macaanka ka badatay maasha allahna anaana mataqaanaaye macaankeeda inii dhadhamiyey marka aada u mahadsantihiin waxaa idinla qaybsanaya maanta waxaa waaye baasta makaroonida ah een lagu karinayo caanaha oo mataqaanaa sidaa yar fudud loo karinayo aada iyo aada u mahadsantihiin walaalaha dhammaan igu soo biiray waxaan leeyahay soo dhawaada aada u mahadsantihiin haddii ay tahay markii kuugu horeysay oo aan soo booqatayna hanaga ilaawi subscribe-ka thumbs up-ka share-ka iyo commentiga assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu